رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. waxa uu yidhi cabdullaahi bni cumar asaga iyo aabbihiis cumar ibnualkhataabba alla raalliha ka ahaadee wuxuu yidhi rasuulka alleh sala allahu calayhi waaalihi wasalam islaamka 5 baa lagu dhisay qiridda in uusan jirin alle xaq lagu caabudo oo aan allah ahayni, muxammedna sala allahu calayhi wasalam uu yahay kii allah soo dirsaday, salaadoo la istaajiyo oo la toosiyo, sakada oo la bixiyo, xajka iyo soomidda bisha ramadaan. bukhaari iyo muslim ayaa wariyey. haddaba soonku waxa uu ka mid yahay 5 camal ee islaamku uusan la'aantood haddii la awoodo jiri karin, waxaana laga rabaa qof kasta oo qaangaaray oo awood u leh in uu alle dartii uga tago wax kasta oo u bannaanaa ee ka jebin kara soonkaas laga bilaabo soo bixidda iftiinka fajru saadiqa loo yaqaan ilaa iyo qorrax dhaca. ka tegiddaas alle dartii looga tegayo ayaa waxaa la yidhaahdaa soon. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا